guriga. albaabada oo dhan waa ay xiran yihiin, waxaana ninka guriga iskale uu dareensanaa waxa meesha ka socda. taasi ayaana keentay in dhammaan albaabada uu xiro. albaabkan kuu muuqda kama uu bixi karo sababtoo ah eega istaafka ah ayaa si weyn u qaylinaya. wuxuu qiimeyn doonaa albaabada kale iyadoo ninka guriga iska leh oo hubeysan uu banaanka u soo bixi doono. kartoonkan yar ee lagu keena sameecadaha ayuu u arkaa ninkan goob uu gabaad ka dhigan karo ama uu ku dhuuman karo si uu kaga badbaado dabinka uu ku dhacay maanta. waa kan ninkii xaaskiisa ay la jiiftay ninka dambiilaha ay meesha isku qarinaya. waa tan khiyaanoolayda weyn ee khiyaanaysay ninka qaba. ninka hadda waxuu raadinayaa halka uu khiyaanoluhu ku dhuumanayo, waxaana la isweydiinayaa halka meesha uu noqon doono. ahey, wuxuu u muuqdaa hadda ninka guriga iskale inuu helay halka uu ninku ku dhuumanayo oo ah kartoonka agtiisa yaalay. xaaskii khiyaanolayda ahayd ayaa yaaban oo qaylinaysa, islamar ahaantaana leh badbaadi ninka. aad ayuu u caraysaya ninka guriga iska leh. ul ayuu gacanta ku wataa, sidoo kalena waxa uu gacanta bidix ku wataa caag aan qiyaasayo inuu baasiin ku jiro. waxa uu hadda ku shubayaa kartoonkii uu ninka ku jiray, waxaanuu jeebka kala soo baxay tarakh isagoo doonaya inuu ku daaro. way yaaban tahay xaaskii khiyaanolayda ahayd. maxaa dhici doona haddaba? hey, tani waxay ahayd riyo oo keliya. ninkan khiyaanoolaha ah ee inta badan la seexda xaaska la qabo ayaa ku riyooday isagoo lagu qabtay oo dabna lagu gubay. waxa uu dareemayaa inay tani riyo tahay, laakiin laga yaabo in biri uu dabinkaasi ku dhaco. maxaa xigi doona? waxaana uu tilmaamayaa in ay tani badbaado tahay, maalin dambena uusan u laaban doonin. qolka ayaa loo soo garaacay. hadda waa kuma qofka qolka hadda u soo geli doona? waa su-aasha la isweydiinayo. waa tan khiyaanoolaydii iyadoo la qabo qaraabanaysay. ninkii waa naxay naxdin tii ahayd. waxa ay leedahay waqti ila qaado, ninkayga ma ahan mid goobahan iyo meelo u dhow xitaa jooga. isagana riyada ayaa wax lagu tusay. waxa uu doonayaa inuu halkan ka baxsado isagoo leh